munaasibadan oo ahayd mid taageero iyo soo dhaweyn loogu muujinayo suldaanka guud ee beelaha Arab Suldaan Abdurrahmaan Suldaan Cumar Suldaan Maxamed Suldaan Faarax ayaa lagu qabtay magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka. Munaasibadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay xogayaha guud ee safaaradda Somaliland Jaamac Cabdi Giire, gudoomiyaha jaaliyadda guud ee Somaliland Mukhtaar Axmed, Sharmarka Axmed Ismaaciil, madax ka socotay xisbiyada iyo ururada Somaliland, siyaasiyiin, uqaal, waxgarad, haween, dhalinyaro iyo marti sharaf kale. Qaar ka mid ah odayaashii iyo waxgaradkii munaasabadaasi ka qayb galay isla markaana ka hadlay ayaa sheegay in Suldaan Abdurrahmaan Suldaan Cumar Suldaan Maxamed Suldaan Faarax uu yahay nin karti badan, awoodna u leh shaqada loo igmaday, iyagoona Alle uga bariyay in mas'uuliyadda culus ee loo igmaday uu Alle u fudaydiyo. halkan ku soo dhaweynaya suldaankeena guud ayaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa iyo qaaya sare lagu soo dhaweynayaa Suldaan Dr. Abdurrahmaan Suldaan Cumar Suldaan Maxamed Faarax Mahad, suldaanka guud ee beelweynta ama beelaha Arab oo la yahay ku soo dhawow suldaan dalka Jarmalka. waa suldaan qiimo leh, waa suldaan aqoon-yahana, waa suldaan maadiga diiniga runtii ku talax tagay, waa suldaan kaga duwan salaadiinta kale, waa suldaan kaga duwan runtii salaadiinta kale inay u kala soocan tahay suldaannimadu iyo siyaasaddu. weligii fagaaro ka u hadal siyaasadeed uu fahamsan yahay macnaha iyo muhiimadda xilka uu hayo dadkiisa iyo deegaankiisa ee suldaannimo. injineer Suldaan Cumar Suldaan Maxamed Suldaan Faarax wuxuu ka soo jeedaa oo uu hogaaminayo maanta sandalad ballaaran oo taariikh weyn Somaliland ku leh. haddaa soo qaato awowgii Suldaan Maxamed Suldaan Faarax wuxuu suldaankii guud ee Salam, wuxuu suldaankii halganka, wuxuu suldaankii ugu hor tallaabay salaadiinta Somaliland. markii dalka la soo galayna wuxuu ahaa suldaankii nabadda shirkii Burco shirgudoonka salaadiinta Somaliland ahaa. haddaan reer Jarmal nahay aan u yeelanay inuu suldaanka guud ee beelaha Arab halkan loogu yimaado. waxaan salaan uga sidaa sandalada guud ee Hawaarawan iyo salaadiinteeda oo dhan. soo dhawow baanu leeyahay Abdurrahmaan Suldaan Cumar Suldaan Maxamed Suldaan Faarax oo aan leeyahay ku soo dhawow dalka Jarmalka, kuna soo dhawow dadkaagii oo maaragtay qalbi samaan iyo midnimo maaragtay ku soo dhaweyn. Suldaan aad baan kuugu faraxsanahay. maalin aanu kaaga baahi badnayn ma jirto inaad noo timaado, aad nala aragto waxaanu halkan ku hayno iyo xaaladayada, sida aad uga gudbin lahayd dhaqanka qoladii wadankii joogtay, inaad warbixin u siin lahayd nolosha qurbaha taalla. waliba nasiib ayaanu leenahay. markaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. soo dhawow suldaan ku soo dhawow dalka Jarmalka. ilaahayna kula garab qabto hadafkaaga aad halkan u timid. suldaan ku soo dhawow dalka warshadaha iyo farsamada, dalkan loo yaqaano isku filanta ay dadkeedu yihiin dad wax qabsada, dadka warshadaha iyo wax soo saarka. suldaan waxaan leenahay waqti loo baahay barnaamij timid ku soo dhawow Jarmalka. waxaa la yahay sidaan ku soo dhawow dalka Jarmalka, ku soo dhawow dadkaagii oo ku jecel, ku soo dhawow guud ahaan ummadda Soomaalida halkan degan oo si isku mid ah oo qalbi furan ku soo dhaweynaya. gaar ahaan anigoo ka wakiila jaaliyadda guud ee Somaliland ee dalweynaha Jarmalka ku nool, waxaan ku leenahay suldaan soo dhawow. innagoo isku duuban waxaanu soo dhaweynaynaa suldaankeenii guud Suldaan Abdurrahmaan Suldaan Cumar. soo dhawow baan ku leenahay suldaan, ku soo dhawow dalka Jarmalka iyo dhammaan Yuruba. suldaan guud ee beelweynta Arab Suldaan Abdurrahmaan Suldaan Cumar Suldaan Maxamed, waxaan ku soo dhaweynayaa waddanka Jarmalka oo aan leeyahay suldaan ku soo dhawow waddanka Jarmalka. waxay soo dhaweyntaa waa rasuulkiisa Allah subhanahu wa ta'ala ajri xasan ay ka siiyo. xaqiiqatan wadciga dalkii ka jira maanta inama ma moogano social media iyo isku xirka dadku ayaa fududeynaya in qof walba la socdo xaaladda iyo wadciga jira. laakiin
midda ku dardaarmayaa waxa weeyaan maadaama wadda kasoo fogtiin waddankii iyo dalkii iyo dadkii waxa weeyaan mushkiladda halkan ka jirta halkan ha ka abuuranaya idinkuna halkan ha keenina waxa ka jira isku daya inaad abuurtaan xal aad u geen karaysaan dadka halkaa mushkiladda ka hayo u noqon karaysaan idinku dawo waa Ayaala Mudakar MMTV wararka Jarmalka.